shirkan jira ayadu qabanayna inaanu wax ka niraahno xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku sugan yahay saddex qodob oo kooban ayaan doonayaa inaan si guud uga hadlo waxaan anagoo ah garabyadii uu xisbiga kulmiye ku duulayay waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha iyo musharaxiinta xisbiga kulmiye inay ilaaliyaan wadajirka walaaltinimada xisbinimada nabadgelyada maadaama xisbiyadu ay yihiin xisbiyo ah hanti qaran danta shakhsiga ahna ay ka weyn tahay danta guud ee caamka waxaan mar labaad ay muhiimad weyn u leedahay qaranka iyo xisbigaba in madaxweynuhu farta ku fiiqo cidda u keeni karta xisbiga guusha ilaalin karta midnimadiisa wadajirkiisa iyadoo aynu ogeyn in wiigan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu taageeray Hillary Clinton iyadoo ay jiraan musharaxiin kale oo xisbiga ka tartamay waxaan ku dhiirigelinayaa madaxweynaha xukuumaddiisa inay garab istaagaan dareenka taageerayaasha xisbiga kulmiye halka uu yaalo qarankana iyadoo uu madaxweynaha aanu ku farayno in uu garab istaago cid qaranka badbaadin karta ummadda isku hayn karta xisbigana guul u horseedi karta oo ah gudoomiye Muuse Biixi Cabdi iscasilaada wasiiradii xilka ka tagayna kelmadii kooban baan ka oranayaa oo maanseer aan ku tilmaamayo ah xilku waa wareegtay dadka wadajirkooda iyo qaranka ka weyn ruux danihiisa wada jiray waxaan sidoo kale shacabka u sheegayaa in ay tahay fa'tabiru ya ulul absar cibaaro iyo weero ayaa inoogu sugan qof kasta oo awoodda qaran ee la siiyay ku tagrifala qof kasta oo hantida ummadda booba qof kasta oo tacadiyo ummaddiisa saboolka u geysta waxa uu dambaysa in uu halka ugu sarreeyo isagoo joogo ka soo dhaco dhulka yimaado waxaan leeyahay wasiiradaasi oo shacabka xasuusinaya in wasiiradaasi ay xukuumaddu iyo jamhuuriyadda Soomaaliland qarankeedu ay ku waayeen wax weyn oo ay ugu muhiimsaneyd sumcaddii qarannimo ee ahayd nabadgelyada oo qarankeedu uu maataqaanay ay tushuush geliyeen nabadgelyadiisii iyo sumcaddiisii dawlad wanaag waxaan ku weynay asxaab ay maataqaana ugu muhiimsan oo asxaab waaweyn oo qarankani u lahaa oo ka mid yihiin wadamada jaarka Afrika qaaradaha Yurub iyo Aasiya waxaan ugu dambeyntii ku soo gunaanadayaa oo aan leeyahay nabadgelyadu waxa weeyaan cid walba dambeeyay dalka nabadgelyadiisa waxa ilaashanaya oo guddi oo shacabkiisa wasiirada ku goodinaya wax weyn baa ka dhici doona ee dalka nabadgelyadiisa leewan waxyeeleynayna waxaan xasuusinaynaa inay qaranka ay ilaashanayaan nabadgelyadiisa shacabka ay diyaar u yihiin oo heegan u yihiin oo ay garab taagan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku boorinayaa madaxweynaha qaranka oo ku hambalyeynaya go'aankii geesinimada lahayd ee waliba degdega ahaa ee uu ka qaatay buuxinta jagooyinka wasiiradaasi bandeeyay dalka waxa ku sugan aqoonyahan iyo dad badan oo ka karti iyo ka sumcad iyo ka raganimo badan oo runtii waajibaadkooda intii gudan kara dalkuna uu mar dhutiyo wasiir marka horeba isagoo oo aan tacab badan gelin xukuumadda xisbiga si ma taqaana nasiibku u keenay waxaan leenahay madaxweyne xisbigaagii iyo shacabkaagii ku doortay way kuuga hanweyn yihiin way ku faraxsan yihiin way ku garab taagan yihiin sida aad u badbaadisay xisbiga kulmiye oo ilaalisay nabadgelyadiisii u soo celisay wadajirkii ugu dhiiratay inay wada jaan qaadaan xisbiga iyo xukuumadda gacanta haysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.